soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. Mowduuca muuqaalkan waxaa marka loo ciyaarayaa qof kale. Qofkana uu ciyaaraya budget ahaan ama lacag ahaan waxaa kaliya kaga bilaabay lacag gaarayso $75 oo weliba ay ka sii go'day $2 oo charge ah. $71 camal ah dabcan Binance muxuu ahayta akoonkiga Linebet ka soo gashay. Soo marka lacagta $71 hadeertaan balance ahaan waxaa hayaa $1269. qofkana dabcan balanta ku balan waxay ahayd lacagtan $75 ah haddii ay qasaarto waxba kaama rabo, laakiin kaliya iyo hagar bax waxa u baahanaa inaa mobile iPhone ku gato. Ma aqaan dhalinyarada sababtay mobilada iPhone ku u waasheen, laakiin dhalinyaro far badan oo waxaa jirto mobile iPhone u baahan haddana dabcan saa dirtid applicationadan u ciyaaro. xitaa haddii ay la soo macaamilin waxaa qasab ah in si shakhsiyan isaga qofka uu ciyaaro isagoo isdhahayo mobile iPhone gado. soo marka hadeertaan balance ahaan waxaa hayaa $1269. alisina mobilka caadiga ee hadeertaan ugu qiimaha badan iPhone waxaa la gadaa $1500. soo marka waxaa rabaa maadaama $1269 ah hayo ilaa $2000 ilaa $2500 ina gaarsiiyo, isagana $2000 aa siiyo, anna commissionkeyga halkaas oo iga soo baxo. soo marka waxaa rajeynaa muuqaalkan step by step trade walbo ah qaadan doono inaan si toos ugu sharaxo muuqaalka gudihiisa. soo marka isla soconno haddii ay tahay dawashada kugu rijin ku xisaasimada kaaga cusub inaa jilka subscribe saarto, muuqaalkan aad like saarto, saaxiibada la wadaagto. laba qodob aan rabaa inaan muuqaal kugu la wadaago. labada qodobna muuqaal walba dabcan dadku waa ugu sheegaa. qodob koowaad wuxuu noqonayaa in targetkaadu uu noqdo wax cad. ana hadeertaan $71 oo kaliya ka soo bilaabay, targetkeygana dabcan $2000 ilaa $2500 waaye. hadeertaan waxaa hayaa $1269. xisaab ahaan ama maskaxiyan ahaan marka koowaad ee dabcan aa bilaabaye qorshahayga mentality ahaan waa u diyaarsanaa, hadafa u soo baxay oo target ah. targetkeyga haddii aa gaaro waa in halka ku joojiya lacagtana automatically withdraw gareeyaa. haddii kale haddii targetkeyga aa gaaro waa si ciyaaro waxaa qasab ah inaa khasaaraya maadaama aa u ciyaaray wax aas optional ah. wax walbana markay optional noqdaan waa wax qalqiil galayo. soo marka dhalinyarada inta badan waxaa kala talinayaa marka koowaad ee baashan soo galayaan xaqiiq waa 99% dhalinyarada xirfadda leh wax way ka sameyn karaan, laakiin hamiga iyo dabcan waxa optionalka ay ka dhiganayaan dabcan dilayo. soo marka qodobka mar walba ina iska fogeyso isku day oo targetkaada uu noqdo stop loss kaada. qodob kale wuxuu noqonayaa in gameska qaarkood aad daawato si aad uga hesho signal saxan oo waliba 100% aad isku hubto oo dabcan trade-kaada aad qaadanayso aad ku ogaan karto. hadda gameska qaar aad daawanayna si aad signal saxan u helno $469 halkan dhiganayna $469 plus $150 halkan dhiganayna $469 ilaa $150 $1350 ku xisaabtamayay laakiin mistake ay ahayd. 500 halkan dhiganayna $2500 ilaa $2600 aan rabnaa. automatically hadeertaan waxaa haysanaa $2693. sababta trade-kan u qaataa sharaxayaa gamekii ka horeeyay ee dabcan $150 ilaa $469 oo ku qasaaraya wuxuu ku dhacay 2.66 markuu ku dhacay automatically trade-ka ku xiga waxaa qaatay $150 ilaa $500. $500 hubaal waxaa huwa gameka inuu gaari karo 2 ilaa 3, waana sababta ay kaga digtay 1.99 oo $995 ah ku helay. trade-ka labaadna dabcan maadaama lacag yar uu yahay waa mid 99% iska optional ah. isagoo iska optional ah haddana waxaa kaga digtay 11 oo dabcan ani waxaa isdhahay 12 oo ku dhici karaa. 12 sababta u qaataa waxay ahayd 66 taa oo macnaheedu yahay 12. soo marka 12 mus ku dhicin manipulation dhacay wuxuu ku dhacay 17. daaswa hadeertaan aan ku haystaa $2693. $71 oo kaliya waxaa lagu sameeyay $2693. waana dabcan lacag marka la fiiriyo aana u qalmin in lagu sameeyo, laakiin haddii qofku uu fahmo mathematicska ama mindsetka xisaabta ah ee dabcan mar walba ku jiro algorithmka
qof walba uu samayn karo inkastoo waqti badan ay qaadan karto haddana qof walba waa uu samayn karaa haddii waqti uu geliyo marka waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan wax badan ka fahantay sidoo kalena aad ka faa'iidaysan doonto just waxaa trade gareeyay 4 trade 2 trade oo kamid ah mid kamid ah waa ku guul dareystay halka saddexda kalena dabcan success trade aa qaatay soo marka waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan wax badan ka fahantay sidoo kalena aad ka faa'iidaysan doonto targetkaygana waa hit gareeyay soo marka ma rabo inaad wax risk ah qaato waxaa ku qasbanaa lacagta automatically inaad withdraw sameeyo si wax lost ah aan ula kulmin 2500 withdraw gareynaya maadaama 2000 dollar qofku uu leeyahay 2600 dollar withdraw gareynaya si 2500 dollar nadiif iigu soo gaarto qofkana 2000 uu qaato ana 500 uu qaato almost hadirtan lacagta withdraw waa dhahay sida ku muuqato mar walba marka targetkada markii aad gaarto hadii aad joojisid waxaa hubaal ah inaad khasaare dambe la kulmi doonin hadda aniga si ciyaar la ano 2600 gaare waxaa laga yaabi lahaa in 2600 aa u khasaare la ano isdhaay 3000 dollar bis gaar 400 dollar bis ku dar aa laga yaabi lahaa soo marka dhalinyarada inta badan waa kala taliya weliga Allah iska ilaali in dabcan mistake lacag yar aa u qaadatid marka waxaan rajeynayaa muuqaalka wax badan ka fahanti sidoo kale aad ka faa'iideysan doonto marka hadii aad daawashada ku originalka wax xashmada ka codsanayna jalka subscribe saarto muuqaalkan aad like saarto saaxiibadan aad la wadaagto waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan